بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel walbo aad dunida ka joogtaan maalin wanaagsan habeen wanaagsan hadba xilliga ay ku tahay ku soo dhawow Gosaar Graphics iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa sidee frame 3D ah loogu sameeyaa sawirada Instagram-ka dabcan waxaan ognahay in inta badan dhalinyaradu ay xiiseeyaan Instagram-ka iyo sida ay u isticmaalaan oo sanadahan dambe aad u soo badanaysa waxaan kula wadaagi doonaa hab ama qaabab aad ku samaysan karto frame ku gaar ah oo Instagram-ka aad ku isticmaasho la socod wanaagsan si aad u daawato muuqaalkan iyo muuqaalo kale oo xiiso badan fadlan channelkan subscribe saar like muuqaalkan haddii uu ku qanciyay share u dheh saaxiibadaada si aad u noqoto qof ugu horeeya ee xilli walba ama mar walba hela muuqaaladeena fadlan gambaleelka furo aad baad ugu mahadsan tahay la socodka muuqaaladeena waan soo gelino bartaan YouTube-ka ee Gosaar Graphics la socod wanaagsan muuqaalka ayaan go'dhow bilaabi doonaa fadlan software-ka aad ku shaqaysan lahayd bilow ama soo kacso ee ah Photoshop ani waxaan isticmaalayaa Photoshop CC 2017 dib ma lahan hadba software-ka aad isticmaalaysid hadduu Photoshop yahay waad ila socon kartaa la socod wanaagsan waxaan tagayaa folder-ka ay yaalaan document-yada aan ku shaqayn doono resource-gan inta ay yaalaan marka hore waxaad screenshot ka soo qaadanaysaa shaashada ama screen-ka Instagram-kaaga farming Instagram-ka kaliskaaga ka soo qaadanaysaa waxaan ugu talagalay inaan wax badan ka soo qaato midka kula fiican ayaad dooranaysaa xilligaas okay midka kula fiican ayaad dooranaysaa dib malahan ani ahaan waxaan soo qaadanayaa ilaa intaan ayaan soo screenshot ka soo qaatay midkaan ayaan dooranayaa waxaan leeyahay open with Photoshop marka adina soo furo oo soo gasho marka saan aad u soo gashatid screenshot-kaaga waxaad dooranaysaa toolkan oo lagu jaro rectangular-ka waxaa lagu jaraa selection weeyaan marka halkan ayaad ka dooranaysaa waxaad leedahay okay double click dheh inta background meesha background ay qoran tahay double click dheh okay dheh si uu kugu furmo layer 0 okay hadda waa shaqayn kartaa kadib waxaa intaan leedahay meeshan aad taagan tahay waxaa leedahay calaamadan right click aad ku leedahay waxaad taabanaysaa transform selection aad dooranaysaa then waa soo drag gareyne ilaa aad si qiimaysay sawirka meesha uu yahay okay then waxaad dooranaysaa calaamada tigtaa kadib waxaa leedahay backspace hadda waxaa ku dooran frame oo aad ku shaqaynaysid mar labaad aan ku laabto sawirka qayb ugu daray dib malahan hadda waxaa leedahay backspace okay marka meeshaan aad taaganahay waxaan rabaa inaan saxdo ama aan soo doorto inta aan ku shaqeynayo frame-kan ka isticmaalayo okay waxaad dooranaysaa toolkan oo loo yaqaano group tool okay markaad saas u dooratid waa soo jiidaysaa ilaa inta aad u baahan tahay okay sawirka wax yar saan soo dheh kadib calaamada tigta ku dhufo okay markaa meeshaan taagtaa zoom dheh zoom in okay meeshaan markaa taagan tahay postigan si uu noqdo waxaan aniga leeyahay inaan wax badan ka bedelo waay okay marka dhib malahan waxaa soo tagaysaa folder-ka laabanaysa ay ku yaalin resource-ga labadan sawir aan rabaa inaan ku shaqeeyo midkood labadan sawir aan rabaa inaan ku shaqeeyo midkood okay midkaan aan dooranayaa okay aan doorto aan dhaho open with okay mid leenoo door midka aan doorto okay waxaa leedahay open with Photoshop ka furaysaa zoom out dheh waxaan rabaa marka sawirkan inaan isticmaalo sawirkan u isticmaalo aad muhiim ah background oo taa background-ka markaan rabaa inaan ka jaro okay background marka waxyaalo badan lagu jiraa screen-tan waa lagu jiraa oo waxaa loo yaqaanaa isaga background-kan lost tool loo yaqaanaa waa lagu jiraa background-da lagu jiraa
جدا. اوكي جدا بايجرونka waa lagu diraa waxyaalo badan oo lagu diraa qayda sida waxa kamid ah midkan oo selection toolka kamid ah oo quick selection toolka kamid ah marka adiga midkaad u baahan tahay aad isticmaalaysaa laakiin waxaan isticmaalayaa pen toolka sababtoo ah master ah waan advanced una ka fudud yahay. okay soo dhaho si aad wax badan u aragto sawirka waxaa la rabaa markaad jaraysid inaad jartid inta aad u baahan tahay oo kaliya. okay la soco waa soo jaraysaa malahan haddii uu kugu adkaado jaritaanka kulaa mar labaad mar saddexaad wixii lagu dadaalo waxa waaye waa lagu guulaystaa ama waa la gaara. fadlan saad u daawato muuqaalkan iyo muuqaalo kale xiiso badan channelkan subscribe saar gambaleelka furo saad u noqotid qofka ugu horeeya ee muuqaaladeena daawada sidoo kale inta like garee oo haddii muuqaalkan ku caawiyay asxaabtaadana la wadaag haddii aad ka faa'iidaysatay si ayagana uga faa'iidaystaan. cilmiga wuxuu ku bataa marka aad qofka walaalka ama saaxiibka aad la wadaagto. okay markaad taagan tahay soom inaad leedahay. okay intaana marka hore waxaa leedahay max selection aad leedahay jida kadibna waxaa leedahay okay dan waxaa leedahay backspace and delete midka aad doontid. okay qaybta sasax soo jarta qaybta laana waxa qaybta intaan ay dhiman ayaan waan sameynayaa waxaa leeyahay sumada soo meesha garantiya okay sawirka marka meesha taagan tahay sawirka saano ku noqonaya saano sawirka ku noqonaya saana selection soo leedahay marka sawirka dhawaalahan ayaan haystaa sawirka kaliya aan haystaa waan soo qaadayaa soo jiidaysaa kaliya soo jiidaysaa waxaad u keenaysaa frame-kii aad diyaarsatay. okay zoom in aan dhaho waxay aan weyneeyo sida waxay aan weyneeyo okay okay meesha markaa taagan tahay okay markaa meesha aad taagan tahay waxay intuu siki okay marka meeshan aad taagan tahay hadda maxaa ku diyaarsan sawirkii baa soo gashtay frame-ka soo gashtay. okay frame-kan uu diyaarsanaa hadda saan ayuu ku soo muuqanayaa sawirka marka waxaan u baahanahay waxyaalahan oo aniga aan lahayn inaan meesha ka saaro sawirkan aan sii qurxiyo. okay meesha aan tago waxaan soo gashanayaa background la waan soo mujid background soo gashanayaa. okay waxaan tagayaa folderka ii yaali sawiradii la soco background ka soo gashtay waxaan leeyahay soo drag gareena waa dibkeena. okay background marka magaca uu bixiyo waxaa leeyahay bg background ka soo gaabiye marka background waxaa layer 0 toos marina. okay waxaa leeyahay waxaa la qabanaysaa shift iyo waxaa isku la qabanaysaa alt waxaa leedahay camera la diidaysaa afan zoom in aan okay si fiican
inta taagan tahay sawirka marka hadda dabcan sidoo hore wuu ka qurxoon yahay background-ka marka sawirkan aan rabaa inaan background-kan aan rabaa inaan la xir qurxiyo waxaan soo dooranaysaa toolka waxaa loo yaqaanaa blur tool waxaa loogu talagalay in sawirka blur aad ugu dhigtid waxa isku darsan camal aad ka dhigtid kalikaa ku leedahay waa sawirka si sahlan ka soo qurxoonana marka meeshan aad taagan tahay wax yar markaan soo jaraayo sawirada xoogaa waxa isoo raacay marka waxa isoo raacaya ka qurxina si fiican marka meesha aad taagan tahay waxaad doonaysaa markaad blurkan aad dooranaysaa marka waxaan rabaa sawirada meesha kala darsamaya filmka inaan xoogaa qurxiyo oo aan iska leheysiiyo marka meeshaan taagan tahay waxaan rabaa inay la aragtaan inay wax yar waxaan u sameynayaa shadow yar oo sawirka marka kala socda sawirkan dib tagayaa waxaan dooranayaa brush toolkan aad kaligaa leedahay halkaa kan waxaa ka dhigaysaa sagaalkana internet layer cusub soo furnaysa waxaa leedahay greenness-ka leedahay brushkan aad dooranaysaa brushkan ka dooratid opacity-giisa waxaa yaraynaysaa Okay.
background-ka tijaabo kala sameynaynaa waan fiirinaynaa. keena horaa iska qaadanaynaa. marka waxyaalo waxaa jiraan oo anaga ku jiraan meesha anaga aanan lahayn, waxyaalahaas iska edit garaynaynaa. roadmasterkan waxaa usoo qaadanay inaan inaan ku saxano waxaan meesha ku badan aanan ka tirin, marka waxaan rabaa inaan ka tiro waxaad dooranaysaa layer 0 dooro, kadib cafwan siska u dhamaystir capacity u dhamaystir. hadda waxaan rabaa control kadibna waxaad dooranaysaa marka waxaad qoraysaa sida magaca goosaar dheh goosaar calaamada meniska design waa page-keena Instagram-ka aan ku leenahay fadlan booqo follow garee waxyaalaha aan kusoo bandhigno aad ula socotid. waxaad dooranaysaa madow, farta waxaa ka dhigaysaa black, waxyar siiska badinaya. marka title-ka oo waxaa qaadanaynaa tutorial-keena, waxaa leenahay sidee loo abuuraa frame, sidee loo abuuraa frame markaa meeshaan taagan tahay waxaa sameynaysaa waxaa title-ka aan qoranaya. marka adiga waxaa doonta ku qoro, waxaan leeyahay sidee loo abuuraa frame 3D ah adigoo u isticmaalaya sawir Instagram. afaraal noqda sidee loo abuuraa sawir 3D ah adigoo isticmaalaya frame Instagram. xoogaa farta inaan weyneyno waaye. waxaan dooranaynaa layer 0,
kan haduu tagayna koob yaa leedahay soo qaado waxaan ka dhigay kaaro inaan soo qaato midkaan aan koobiyana control J yaa leedahay soo dalagalay marka kan waxaan rabaa inaan naho inaan comment ka bixiyaa agriya waxaan leeyahay si aad u daawato ama uga faa'iidaysato booqo YouTube channelkeena okay and okay hadda markaa meeshaan taagan tahay framekii uu ku diyaarsan yahay waxaa leeyahay control hooy shaqadii aan u talagalnay framing gaadintii sana ayaan ku diyaarisay dabcan muuqaalkan haddii ku qanciyo like saar channelkan haddii aad ku fadlan subscribe garee si aad mar walba muuqaalada aan soo gelino aad u daawatid noqotid qofka ugu horeeya muuqaaladeena daawada fadlan kan baleelka furo